madaxweyne maanta ay bishu tahay 29 khamiis bil u dambaysa oo aan u astaysanay inay noqoto maalinta ololaha ama nadiifinta caasimadda waxa 8 degmo 6 subaxnimo ka bilaabmay olole ballaaran oo magaalada lagu nadiifinayo oo soconaya subaxaas ka ay 6 uu bilaabmay ilaa galabta waxa noo sharaf madaxweyne haddaan nahay dawladda hoose ee Hargeysa in adiga golahaagii wasiirada dhammaantiin aan la joogtaan oo waliba gacanta ula tagtaan ina qashinkana la gurtaan tani waa dhiirigelin weyn oo waxay dhiirigelin u tahay shaqaalaha iyaga waxay dhiirigelin u tahay dadweynaha reer Hargeysa ee u soo diyaar garoobay inay Hargeysa nadiifiyaan waana idinka mahadnaqaynaa madaxweyne ololayaashan waxaan uga gol leenahay shirkadaha qashinka guraa qashinka soo baxaya iyo intay qaadayaan way kala badan yihiin marka qashinku wuxuu ku dhamaadaa ama wadooyinka ama dooxyada ama meelaha la wada leeyahay yaraantaadii waad garanaysaa dooxani quruxdu lahaa maantana xaaladiisu waa sidan dooxa qaybo kamid ah waanu nadiifino qashinkii waan ka dhamaynay qaybaha kale hadhayna maanta ayaanu ku tala galay insha Allah taala inaanu meel nadiif ka dhigno madaxweyne degmooyinku way ku tartamayaan qashin gurka sida ay ugu tartami doonaan cashuurta ay la soo baxaan in wax loogu qabto oo ay ku horumaraan ay ugu tartamayaan waxaan rajaynaynaa galabta 4 galabnimo insha Allah taala inaanu aragno degmada xilkeedii gudatay ee ku guuleysatay inay qashinkii 80% ama 90 ama 100% inay iska nadiifiso madaxweyne bilicinta iyo qurxinta caasimaddu madaxweynaha qaranku inuu nagala qayb qaataa waxay diraysaa fariin weyn shacabka reer Hargeysa waxaan filayaa markay maanta codkaaga maqlaan insha Allah saacadaha dambe inay noo soo bataan oo ay xoog nagu soo kordhiyaan si aan magaalada u nadiifino